waxay xayiri doontaa maritaanka dadka ay xayiri doonto qofba mar bay ku dhegaysaa wixii qofkaasi maanta ma arkaysaa siduu uga joogsaday daacaadka ilaahay iyo wixii uu ku gabood falay iyo raadaanshaha ilaahay siduu u hor istaagay iyo cubuudiyada ilaahay siduu uga fogaaday yay ugu dhegi doonaan qof walba waxaa imaan doona mid muslimahoo nabadgalay miday xagatay oo muslimaha imaan doona miday kala googoysay baa imaan doona oo ay birahaas kala googooyeen miday maanta naartii kula degtay dalaq ku siisay ayaa imaan doona halkaas ay imaan doontaa nuurka munaafiqiintuna maalinkaasi waa dami doonaa siraad korkiisa ku dami doonaa dam meel xun buu uga dami doonaa iftiinku meeshay ay ugu baahi badan yihiin kolkay joogaan uga dami maxaa yeelay camalkoo la yimid oo iftiinka noqonayaay waa camalkii ilaahay loogu soo dhowaaday weeye maalinkaa ma haystaan kolkaa quluubtoodii oo dhan sidaasay u dantay siday adduunyadaba quluubtooda ay cibaadaadka rabbi uga dantay yow ilaahay nuurka uga damiyey maalinta qiyaamo subxaanahu wa tacaala naqtabis min nuurikum aayaddii iminkaan aqrinayey yaa sidaasoo ku imaan doonta irjacuu waraa'akum baa loodhan irjacuu waraa'akum faltamisuu nuuran suurat alxadiid sidaasaa lagu odhan doonaa ama adduunyadii u noqdo waa lagu jeesjeesi doonaa ama bal xagga dambe u noqdo oo nuur ka soo raadiya baa lagu odhanaya meesha nuurka lagu qaybiyey oo dadka hadda lagu siiyey orda nuur ka soo raadiya lagu odhan doonaa inta aanan maanta arrintaasi dhicinin maan ka fakernay hadday qabasho leedahay mar haddaad dhimato ka bacdi waxba ma sixi karin ma ognaha sidaa mar haddaynu dhimanno kadib inaanan waxba sixi karin laa toobadkeena noo furnayn qaraaba aan goynana aanan sixi karin salaadaan ka tagnana aanan soo celi karinin sadaqa aan ku bakiilana aanan bixin karinin waraynu ogaano oo iminkaynu iscaymi karnaa inta xayaatadu nagu jirto fifty nagu jirta aan issaxno sidaa weeye waxaa ujeedo diintu waxay intifaac leedahay intaad noosha intifaac leedahay haddaadan intay nooshaadan ku dhaqminin hadhow kuma dhaqmaysid oo lagugu abaalmarin meeshaad ka istaagtoon baa lagu marinaya mu'miniintii markay ka gudbaan siraadkii oo maanta ma arkaysaa kamana gudbayaa baa layidhi ilaa mu'minun siraadkana kama gudbi karo ilaa ruuxaan mu'min ahayn xaqiiqiya kama gudbi karo naartaa la haraysa inta kale oo dhan naartaa la haraysa munaafiqii iyo muraa'igii iyo mujrimkii iyo kulli wixii o dhan xaggaa la haraysa mu'min moogiyo mid kaleeta kama gudbi karayo xadiisku waa sidaa weeye kolkay maanta ma arkaysaa ay ka nabad galaan ay ka aamin noqdaan inayna naartii markay gelayno siraadka ay ka gudbeen yaa halkaa lagu soo xabisay meel udhaxaysa jannadii iyo naarta udhaxaysa lagu xabisay markaasaa xuquuqdoodii loo kala qaadi haddana ilaa dadkii mu'miniinta ahaa maanta waa la wada tukanayaa laakiin dembi baanu kala gelaynaa cirdigii baa laga gelaya xam baa la gelaya hilibkiisii baa la cunayaa maalkii dadkii baa la cunaya ammaanadii baa laga cunaya waana la tukanaya masaajidkii baa la gelaya waa la soomaya intaasoo dhani wama allahu bidallaamin lilcabiid wama allahu bidallaamin lilcabiid taleefanka balaaye dhegta inta la saarto gacanta iyo maanta iyo lisaanka iyo caqliga iyo dhegtuba ka qayb gelayaan oo maantoo dhan xanta la iska koobinayo oo aan laga daalaynin waxbaa ka dambayn doona qof walboo laba qof intay meel isula leexato qofka hilibkiisa ay dam ka siinayaan ay cuni doonaan waxbaa ka dambayn doona aan iscafina dhammaantaya soo idin lama qumana intaynu maqlayna soo lama qumana inaan iscafino cafi baad iga tihin kulligii adinkuna i cafiya aniga insha allah intiina wax isku sheeganayso qof haddaan dhibo dhibkaan dhibsaday hay cafiyo qofkii kelmada iga dhibsaday inuu cafiyaan xaq ugu lahay maxaa yeele uma qasdino qofna inaan dhibo laakiin shaydaanku inuu qurxiyaa dhici karta adinkana sidaasoo kaleto qofka hilibkayga cunayaa uma banaana waxaa laga yaabay inuu le kuma maqlaya waad dhihi kartaa inuu yidhaahdo laakiin rabbulcaalamiin baa maqlaya qofkaas malaa'igtuna way maqlaysaa marka in la iscafiyaa dhaantaan u malaynaya aan iscafinna marka sidaa markay timaado halkaa qandaradaasu bayna aljannati waannaar ayaa lagu soo xabisi doonaa dhammaantood markaas ayaa loo soo qof walba loo kala qisaasayaa xuquuqdoodii iyo madaalimtoodii ayaga dhexdooda aatay adduunyada dhexdeeda xadiisku waa sidaa weeyaan madlamadii ay kala galeen dhiiggii ay kala daadiyeen xoolihii ay kala qaateen cirdigii ay kala galeen berita halkaasaa loogu kala qisaasayaa intaan jannadiiba la teginin halkaasaa loo kala qisaasaya meeshaa way meesha camalka xasanaadka iyo sayi-aadka ee loo kala qaadan xataa idaa hudibuu markii halkaasi la kala nadiifiyo udina lahum fii dukuuli iljanna markaa qofkii ilaahay u naxariisto camal ka dhammaado se ilaahay naartii ku xukumin isagaa markaa xaqiisii ka gudayo ilaahay baa ka gudi subxaanahu wa tacaala haddii marka ahlu jannadii jannadii ku sugnaadaan ahlu naarkiina naartii ay ku sugnaadaan
waxaa lala yimaadaa mawtkii baa lala yimaadaa naftiisii isagoo oo wan u eg buuran halkaas ayaa markaasi la istaajaa bayna aljannati waannaar waxaana la yidhaahdaa ahluljannow bal soo fiiriya markaasay soo taalacdaan iyagoo baqayo isla armaa jannadii laydinka saaraa ahlu naarkiiyow iyagoo rajaynayo isla armaa laydinka saaraa naartii ma taqaanin midkaan baa la odhanaya haabay odhanayaanoo waa mawtkii bay odhanayaan markay sidaa yidhaahdaan dhammaantoodna way wada garan waayo qofaan soo dhadhamin mawtka ma jiro rag iyo dumarba qofaan soo dhadhamin ma jiro haada almawt fayudbaxu markaa bayna aljannati waannaar mawtkii baa la gawrici halkaa asaga naftiisa markaa bayna aljannati waannaar uma yuqaalu ya ahla aljannati khuluudun laa mawt wa ya ahla annaari khuluudun walaa mawt ahlu jannadiiyay waad ku waaraysaan ayadoon dhimasho jirinin ahlu naarkay naarta ku waaraysaan dhimashana ma jirta baa la yidhi laa xawla walaa quwata illa billah halkaasoo masiirkii ku dambeeyey ahlu bani aadamkii nudfadii bilaabatay dhibicdii bilaabatay uurka hooyada ku bilaabatay halkaasay ku dambaynaysaa natiijadeedii waa halkaa weeye human development ama gaalku ha ka hadlo ama waxuu doona asagu ha sheegay intaa waa moog yahay gaalku waxa uu ka hadlayaa waa nool yahay iyo waa dhintou ku og yahay waxa uu gaalku ka hadlayaa waa intaa weeye laakiin ilaahay nabi moxamed wuxuu kuu sheegay xaqiiqdiisii meeshuu ma'aalkiisu ahaa buu kuu sheegay inaynu maanta taa ka fakarno ayaa lagama marmaan gaayadaas inaynu ogaano ayaa lagama marmaan ah saasaa marka ilaahay u lacnaday qofka insaankaa intaa la marsii doono inkiray rabbi qutila alinsaanu maa akfarah min ayi shayin khalaqah min nudfatin khalaqahu faqadara uma asabiila yasarahu uma amaatahu faaqbarah uma idaa shaaa anshara waxa aan marka leeyahay kulligaiyo fuqaraan nahay runtii markii loo eego camal aan maanta haysanoon rajayayna in jannada ku gelayno kollayba ma u jeedo runtii way afara'ayta aladii tawallaa wa acطaa qaliilan wa akdaa baan u muuqanaa dhammaantaya ninkii xoogaa yaroo camala sameeyey ee haddana gawaan raaciyey ama xan ha ku gawaan raaciyo ama dhaqan xun oo kale ha ku gawaan raaciyo dhammaantaya waanu isahiraynaa dad fiican baanu isu haysana laakiin dad fiican ma nihino ilaahay baa naga og cuyuubtayada subxaanahu wa tacaala yacni markii naloo eego waxa na sugaya iyo sida aynu nahay iyo waxaan samaynayno waxba gacanta kuma hayno war ilaahay ma u toobadkeenna oo ma iscayminaa inta noo hartay ma iscayminaa inta noo hartay hadda caymadaas waxaa lagu garanayaa qof walba oo adaa qaraarkaad gaarayso qof maanta ku daba socdoo kale ma jiro laakiin xaqiiq weeyaan nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dan annagay noogu jirtaa war qof walbow adaa is ogi qof walbow adaa is og mucaamaladii qalluucneedoo aad ku jirtay ka har camalkii ilaahay diintiisa lagaaga reebood og tahay inaad ku jirta ka har qof walbow rag iyo dumarba ogow inaad dhimanayso oo ku fekero xagga u jeeso marka ugu horraysa oo qubuuraha bal agmar maalin walba hadday kuu suurowdo oo ilaahay qufraan iyo dembi dhaaf halla weydiisto badan khayaano fara badan yaad arkaysaa adduunyadii waa macaantay addunyaa xulwatun khadira in ilmaha la dhaca waa sahlantaho agoonta in la dhaco waa la sahlantaho haweenka in la dhaca waa sahlantaho qofka kaloo taagtayr inuu dhaco waa sahlantaho in la isdulmiya waa sahlantaho in la is-inkiraa waa sahlantaho in maanta ma arkaysa addunya laga daba ordo waa sahlantaho kaarar in la samaysto war maya war haddaynaan rabinin gaalka inaynu ku masiir noqonno haddaynu doonaynin hadda intay goor tahay gaalka aynu khilaafna dhaqankiisa iyo noloshiisa aynu khilaafno war waxa guryuhu u degi la'yihiin waa sidaasi aynu toobad keenno waxa ay musiibadu noogu sallidan tahana waa sidaasi aynu toobad keenno ayuha alikhwatu alakhawaat ma u malaynayo inaan mawduuca u doortay inaan idinka camal wanaagsanahay laakiin inaynu ilaahay u wada noqonno oo aan rabbigana subxaanahu wa tacaala gacanta isqabanno yaan mawduuca usoo doortoon rabbi isxasuusinno qofna camalkiisa jannada ku geli maayo iyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way leeyahay waxay yidhahan adigoo sidaan xataa hamiinkii oo dhan taagan oo lugihii ku bararan miyaadan jannada ku gelin camalkaaga yaa rasuula allah xataa anta ya rasuula allah xataa walaa ana ilaa an yatagamadaniy allahu biraxmatin min wa fadlin buu nabi aniga xataa jannada camalkayga ku geli maayo ilaa ilaahay naxariista fadligiisa moogiye laakiin waa inuu qofku ilaahay baryaa si ilaahay naxariistiisa soo ugu daboolo haddaanan rabbiba baryaynin oo aanan soo cararaynin sidee baa ilaahay noogu naxariisanaya qof ilaahay naxariistiisa ka deeqtoomo oo gacmaha gadaal isu saartay
waa adagtaas sida ilaahay uu siiyaa faama man maanta ma arkaysaa faama man acطaa